guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Daadmadheedhe ayaa maanta kormeer ku tagay deegaanka Cadami oo kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Daadmadheedhe. kormeerka guddida oo ujeedkiisu ahaa u kurgalka duruufaha nololeed ee dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaankan iyo waliba dabagalka deeq biyo ah oo ay dhawaan shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ku wareejisay guddida, taasi oo guddiduna u kala dirtay deegaano tiro badan. qaar kamid ah dadka waqtigan ay duruufaha abaaraha daba dheeraaday iyo diifta nolosha adag ku soo magaalada ayaa iyaguna nooga waramay xaaladda ay waqtigan ku sugan yihiin. waxaan lahaa daari tiro iyo googo in yaro 8 aan haya 8 ha dabadna waan soo tukubo haraadka iyo waraabaha ku cuniyo libaax baa dhulka soo galay baa la yidhi waan baqada dabadna halkan muslimkan ku soo dhawaad magaaladan soo galay aniga iyo qaar badan guddida abaaraha wax naga soo gaaray 13 boodood tuulada Cadami marka anagu tan aanu degannahay Cadami wixii hareeraha lagaga dhawaayay deegaan noo ahaa wax hoolii ka baxeen oo magaalada soo galay wax midhad dul jooga baqtiya oo halkii wali jooga oo ka qaylinaya oo cod kale magaalada la soo gaari kari waayay gaadiid wuxuu soo dhaamiyana waayay in raashinna aan haysan ilaahay uu baa xaaladka maanta jira ka warrami kara dadku waa dad tilahsan xooluhu way waxna waa dhulka yaallaan waxna way dhammaadeen waxa leeyahay yaxna laga warhayso dawladda iyo guddida abaaraha dunyana ma joogto dad baqtiina wali lama hayo halkan meeyaaganda waxba kuma baqtiin laakiin wax dunya la yiraahdo ma joogan xoolihii way dhammaadeen dadku wallahi guri walba in mashaqood soonaysato kuwan ilaahay ha soo naxariisto oo marka dul martay aad u ducaynaysa abaa joogta waxaan ku adduunyadu dawaad ogtahay waxa ka dhacay abaaraha adduunka inuu la aaday gaajadu inay dad iyo xoolaba saamaysay oo ay ku dhamaatay dadkana kala daadulmay oo adduunkii raqdiisi badatay dadkana in yar ula saaran yahay maarta uu si xumay noo haysa waa la kala halaabay waxoolii ka madheen wax weeyaa si dul jooga intaba waanu leenahay oo si baabaaya dadka yagi ugu dalan doolay galbeed buu qabtay haddii uu qabtay wixii ay ka hayeen way ka dhex baxeen oo way madheen Soomaad garan annana walba halkan aanu ku dhabnayno kuwaas uma noo seedaha islaam socon kari waayaanu nahay taa ilaahay baa wax kaalmeeyo waxna kaalmeeyo oo biyo nasiyo oo baad nasiyo waa u baahanaya rasuulullaahi xildhibaan Cumar Guray Bulaale oo ka mid ah guddida abaaraha ee gobolka Daadmadheedhe ayaa isaguna ka waramay safarkooda iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen. anaga ah guddidii taakulaynta abaaraha ee gobolka Daadmadheedhe oo u baxnay kormeer indhaandheena iyo ka dabatag biyihii aanu qaybinay ay bixisay shirkadda Telesom. waxaanu maanta joognaa magaalada la yiraahdo Cadami oo aad iyo aad dadka xoolo uga baxeen una baahan yihiin taakulayn iyo gargaar. haddaba waxaan leeyahay walaalada ku maqan qurbaha iyo kuwa qolqoljoogaba iyo dawladaba waxaan leeyahay dadkaasi wanaagsan loo soo caawiyo baahidoodii waanu soo kormeeray aad iyo aad baanay dadka uga dhabtahay baahidu xoolihii way ka dhamaadeen dadkii baa imika halis ku jira xoolihii imika waa la daayay warkoodii biyihiina waanu ugu shubnay waana taaragtaan cabayaan ilaahay baa mahad dadka ilaahay baahi tiri kara laakiin waxaanu leenahay dadka gurmad aad iyo aad oo degdeg ah la soo gaadho. Muuse Salebaan Maxamed, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Odweyn.